madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inuu baajiyay munaasabad ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu ku soo bandhigi lahaa waxqabadka xukuumadda. caawa ayaa qorshe u ahaa in munaasabad lagu soo bandhigi lahaa waxqabadka muddada ay jirtay xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali kheyre lagu qabto howlka sahal oo ku dhow garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho, balse waa ay baaqatay munaasabadaasi. munaasabada ayaa waxaa lagu casuumay mas-uuliyiin isugu jira xildhibaano, wasiiro, siyaasiyiin iyo dad kale oo marti sharaf ah, laakiin waxaa loo baajiyey sida wararkaan ku helaynay sababo la xiriira khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xasan cali kheyre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la sheegay in uu ku wargeliyey ra'iisul wasaare kheyre in munaasabada dib loo dhigo maadaama ay ku soo beegantay xilli ay jiraan xiisado siyaasadeed. ra'iisul wasaare kheyre ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in uu ka soo horjeestay soo jeedinta madaxweynaha ee ku aadan joojinta xafladda, isagoo ku adkaystay in ay dhacayso munaasabadu. saraakiil ka tirsan madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay idaacadda Dalsan in madaxweyne farmaajo uu ugu dambeyn kulan saacado qaatay uu ku qanciyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xasan cali kheyre in la baajiyo munaasabada iyada oo howlka ay diyaar ku ahaayeen inta badan martidii ka qaybgeli lahayd iyo sidoo kale bahda saxaafadda oo qalabkii ay wax ku duubi lahaayeen halkaas xilli hore oo galabtii ah kusii rakibtay, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah martidii halkaas joogtay iyo saxafiyiintii goobta tegay. gudoomiyaha baarlamaanka